afhayeenka maamulka Puntland Cabdilaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin wadahadal wasiirka arrimaha dibadda Somaliland sheegay inuu u socdo Somaliland iyo maamulka Puntland. Afhayeenka ayaa sheegay in hadalkaasi uu yahay mid siyaasadeed. Waa kan afhayeenka maamulka Puntland oo arrimahaasi ka hadlaya. waan maqalnay warka uu sheegay wasiir Sacad Cali Shire oo uu leeyahay waxa noo socda anaga iyo Puntland wada hadallo. warkaasi waa war aan waxba ka jirin, waa war siyaasi. waa warkii uu horay madaxweyne Muuse Biixi u lahaa madaxweyne Cabdiweli annaga heshiis iyo qodob baan ku heshiinay. waxay ka mid tahay waxyaalaha lugooyada ah ee reer Somaliland loo sheegayo khiyaaliga ah ee ummadda laga dhacdhicinayo aan weligeed runta loo sheegin. qodobada uu akhriyay waxay ka mid ahaayeen qodobadii intaan aysan markii dalka soo weerareen tukarraq qodobo ayuu inka soo jeediyeen ayuu hadda wuxuu ka dhigayaa qodobo cusub oo maaragtay muxuu ahaa ama wada hadalladu ku socdaan ama ay Puntland aqbashay. waxaasi wax jira ma aha. su'aashaas aan raba inaan weydiiyo wasiir Sacad Cali Shire waxa weeye xagee Puntland kula heshiinaysaa wasiirka ma laascaan uu leeyahay ma waxay kula heshiinaysaa Puntland Garowe iyo laascaan dhexdooda. waxaan u sheegnay shacabka Soomaaliyeed horeyna ugu sheegnay shacabka Somaliland laascaano iyo gobolka Sool waa la xoreynaya. waa dhul Puntland waa dhul dastuuriya shacabkooda iyo dadkooda waa la xoreynaya. haddii in muddo ay Somaliland ay dhex socotay macnaheedu ma inay leedahay. haddii iska dhaadhiciyeen xuduud baad xiran ka dhaan xagee ku taala xuduud yaasi xuduud sameeyay ma laascaana xuduud Hargeysa u noqonaysa ma madaxweyne Muuse Biixi baa laascaan la siinaya maxaa lagu wada hadlayaa. bal su'aasha aan weydiinay waxa weeye wasiirka maxaa lagu wada hadlayaa. laascaana leeyahay miyaa leedahay mal Garowe iyo laascaan dhexdooda heshiis kula galbaad leedahay. bal shacabka Soomaaliyeed waxaan ku weydiinaynaa bal maqashii waxaad leedahay aan kugu heshiino. bal Somaliland Puntland ma haysato duulaan kuma aha mid doonayso dad Soomaaliyeed weeye nabad bay la doonaysaa barwaaqay la doonaysaa baraaray la doonaysaa laakiin inta dool la soo duulo oo qoryo la soo qaato shacabka laascaan la caburiyo oo dhowr tiknika lagu wararaceeyo muxuu ahaa gobolka Sool dhexdiisa in la yiraahdo Ingiriiska baa noo soo sheegay meeshaan waxa weeye xuduud bay ahaan jirtay. waa rawaayadaha lagu wado weeye shacabka Somaliland hawaan toobaan shacabka Somaliland hana fiyo baadaan waalidan madaxdoodu sheegayso ee lugooyada ah ha ka waanto runtan ha ogaadaan. shacabka Puntland waxay u sheegaysaa dawladdu gobolka Sool waa Puntland dadkiisu waa Puntland laascaano waa Puntland waa laascaano gobolka Sool waa la xoreynaya. shacab iyo dal Puntland ay leedahay oo reer Soomaaliyeed u haysan doona ma jirto. nabaddu Puntland iyadaaba ku asaasanba 98 ilaa hadda Puntland ku caanamaaleysa nabad waxay kula nooshay ummadda Soomaaliyeed nabad shacabka Somaliland waxay kula nooshay nabad